warbixintani ay soo saartay kooxda caalamiga ee xasaradaha adduunka International Crisis Group oo ay ciwaan uga dhigtay khatarta gobolku ay ku keeni karaan rajada Soomaalida ayaa diiradda ku saartay halista madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uga iman karta dalalka dariska la ah wadanka Soomaaliya. warbixintan ayaa lagu sheegay in guusha madaxweyne Farmaajo ay fursad siinayso dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya taasoo nabad iyo xasilooni ugu soo celin karto wadanka Soomaaliya ee guud ahaan Geeska Afrika. balse weli waxaa jira baa lagu yidhi warbixintani shaki laga qabo inay Soomaaliya xasilooni ka hirgasho maadaama ay kalsooni darro ka jirto dhanka dalalka awoodda la leh ee Geeska Afrika dariska kula ah. dad badan ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya kalsoonida iyo taageerada uu haysto madaxweyne Farmaajo inay suurto gelin karto dib u heshiisiin qaran iyo weliba inuu xaliyo boogaha laga dhaxlay dagaaladii sokoye ee dalka Soomaaliya ka dhacay wixii ka dambeeyay sanadkii 1991kii. heer gobol iyo heer caalamiba warbixintu waxay qortay in dadaalada Farmaajo uu doonayo inuu wax kaga bedelo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkiisa laga yaabo inuu kala kulmo dhibaatooyin adag inkastoo uu qaaday tallaabooyin ku aadan inuu fulin doono ballanqaadyadiisii ku aadanaa inuu dib u dhisi doono ciidamadii xoogga dalka, hay-adaha dawliga, ka hortagga musuqmaasuqa iyo weliba midaynta Soomaalida, balse qanaaco la'aan iyo shaki ayaa ay keeni kartaa wadaniyadda ay shacabku ka aaminsan yihiin. madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa si gaar ah walaac ugu abuurtay dalka Itoobiya, taasi oo ku noqon karta mid la mid ah haddaysan ka weyneyn caqabadaha gobolka uga iman kara madaxweynaha cusub, iyadoo la og yahay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay ka dhaxayso colaad gaamuurtay iyo weliba in xukuumadda Addis Ababa marar badan falagelin ku samaysay Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1990kii sida lagu sheegay warbixintani ay soo saartay kooxda dabagalka dhibaatooyinka caalamiga International Crisis Group. sanadkii 2006 Ethiopia waxay gudaha u gashay dalka Soomaaliya si ay u burburiso midowgii maxaakiimta Islaamiga ee ka talin jiray inta badan gobolada dalka Soomaaliya, kuna guuleysatay inay soo celiyaan nabadii muddadii 6 bilood ahayd ay maamulayeen qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya. xukuumadda Addis Ababa waxay u aragtay inay khatar ku yihiin Ethiopia ayna raadinayaan Soomaali weyn. madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa warbixintu qortay inuu ka warqabo shakiga dalalka dariska la ah Soomaaliya ay ka qabaan, isagoo fariin dabacsan u dirayay xukuumadaha Addis Ababa iyo Nairobi sheegayna inuu xiriir wanaagsan iyo wada shaqayneed uu la yeelan doono wadamadaasi. warbixintu waxay kale oo ay sheegtay inay weli jiraan calaamado muujinaya in xiisadaha gobolka ka taagan ay sii xumaan karaan taageerayaasha madaxweyne Farmaajo oo isticmaalaya baraha ay bulshada ku kalanto. ayay warbixintu sheegtay inay faafiyeen muuqaalo muujin madax ka tirsan dalka Itoobiya oo jooga goobta ay doorashadu ka dhacaysay, iyagoo siinaya halkudhigyo ay ka mid yihiin Itoobiya waxay ka naxday natiijada doorashada dalka Soomaaliya. hadalladan ay isticmaalayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo daafaha caalamka kuwaasi oo u arkay in madaxweyne Farmaajo ka hortagi doono faragelinta dalalka dariska la ah Soomaaliya ay ku hayaan arrimaha dalka Soomaaliya. howlgallada ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayay warbixintu sheegtay inay noqon karaan kuwo guuleysta, iyadoo warbixintu sidoo kale ay ku sheegtay in madaxweyne Farmaajo muddadii 6 bilood ahayd ee ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka Soomaaliya uu ku guuleystay inuu al-shabaab ka saaro caasimadda, haddana uu ku guuleysan karo isla markaasina uu haysto fursad kale oo uu meesha kaga saari karo awoodda al-shabaab ay ku leeyihiin gudaha wadanka Soomaaliya. wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweyne Farmaajo waxay warbixintu sheegtay inay jiraan warar la isla dhexmarayay oo sheegaya in ciidamo ka tirsan kooxda al-shabaab oo hogaaminayo Mukhtaar Roobo Mansuur uu doonayo inuu isu dhiibaan dowladda cusub ee dalka Soomaaliya ka dhalatay, iyadoo warbixinta lagu sheegay in arrintan ay fursad u tahay dowladaha cusub ee loo baahan yahay midowga Afrika iyo beesha caalamkuba ay ka taageerto dowladda cusub ee dalka Soomaaliya si ay diiradda u saarto dib u heshiisiin qaran iyo inay mar kale dalka Soomaaliya ay ku soo noqoto xasiloonidii ka jirtay. Khadar Ciise Dheere, Saab TV, Hargeysa.